marka haddii uu diiday Arjun inuu guursado Beriya xaalad xun ayaynu galaynaa oo mowqifkeenu uu isbedelayaa. hadalkaagu waa sax Biriimow, taas waa ma dhici kartaa. hadday dhacdana waxaan gelinay mushkilad tan ka weyn oo aynaan xallin karin. Birim marba wax noo qabatay oo dadkayga aad caawisay, markana waxaan ka rabnaa inaad si fiican noo caawisid biliis. waan ku baryaynaa, adigu waxaad tahay saaxiibkii Arjun, waanad garanaysaa wuxuu ku fakirayo saaxiibka. waxaad tahay qofka kaliya ee Arjun ku qancin kara guurkan. sidaa darteed waan ku baryaynaa. ku baryayaa amiraddeedii maxaad iiga dalbanaysaaba? amarkuun bixitee aniga ayaa ku qancinaya Arjun. mahadsanid, aad baad mahadsantay Biriimow. inagoo raaliyaana waxaan hayaa fikir kale ayaan hayaa. ka waran Biriim hadduu Arjun soo kaxeeyo kadibna dadka dhexdooda aan Arjun arraygiisa ku weydiino hadduu ogol yahay Amira Beriya iyo haddii kaleba, sidaad u aragtaa bal boqoradeedii? waa sax hadalkiinu, laakiin xataa haddii Arjun ogolaado guurkan sidaynu ku qancin karnaa aabihii iyo hooyadii? yaa waxbaa ka warwarin boqoraday, aniga ayaa la hadlaya mudana Sangaaniya, waana hubaal waan ku qancinayaa arrinkan. sidaasay tahayna guurkaasi maaha mid suurtagelaya, waayo anigaaba deg soo jeeda. wax kasta oo dhaca kadib markaan anigoo amiiradda helo laba waxoo kalena waan helaya. ama Arjun ayaa diidaya guurka, ama boqoraday adiga ayaa kasoo horjeesanayno Arjuninantaada guursado. waayo qofaan aniga ahayn amiiradda ma guursanayo, mana ogolaanayo inay cod kale guursato aniga mooyaane. hadda aniga ayuunbaa iska leh. ii ducee boqoradii si aan ugu guulaysto muhiimadda aad ii dirtay arrinkan aad madaxayga. wanaagsan baan ku rajaynaa inankayga. Amira Beriya amiradii hambalyo Beriya hambalyo. waxaan ku rajaynayaa amiradii quruxda badneeday khayr, weliba si niyada, iyo inuu mustaqbalkaagu noqdo mustaqbal cad oo guulo fara badan leh. soo dhiib gacmaha. Biriimow maxaa ku helay? miyaad waalan tahay? haa, laga yaabaa. waa inta keliyan samayn karo, sidii Qays iyo Leyla iyo Cilmi iyo Hodan iyo Cantar iyo Ceebla iyo way waalnaayeen, waayo way isjeclaayeen sida labadeena. Beriya ma ogtahay inaan rumaysanaynba inaan ugu dambayntii labadeenu is helnay? Biriimow waa dhab oo waad waalan tahayba. hooyadiina guurka Arjun bay ka hadlaysaa, adiguna halkanaad waxa ku hadlaysaa. maxaa idinka siiya? sidaa maaha, aroosku u dhacayaa, hubaal u dhacayaa, laakiin Arjun caruuska maaha, waa aniga. anaa arooska. si arrinkaan ugu guulaysanana hal wax yar ayaan ka rabaa oo adigu aad qabanayso. Biriimow diyaar baan wax kasta inaan kuu qabto. waxaan rabaa noloshada inta ka dhiman inaan kula qaato adiga. kuma fakari karo inaan adiga ahayn wax kasta oo dhaca. xataa hadduu yahay Arjun ma ogolaan karo, waa waxaan dhici karin inaan ogolaado Arjun. anigu ma dhacayso. ka wada Arjun waa saaxiibkii qaali, agteydana qaali buu ku yahay, laakiin inuu ninkayga noqdo ma ogolaan karo. oo nafteeda aad baan u faanaya. ku faraxsanahay inaan jacaylkayga kugu beeray oonad cid kaleba arkayn. baas wey. hadda waxaan noqday wax kastoo noloshaada iyo weliba riwaayadaada. macnahay runtii aad baan u fiicnay, geesi. Biriim keliya waxaan kaa rabaa inaad hal wax yaroo keliya samayso si jacaylkeenu ugu dambayn u guulaysto. wayna wax badan hurnaa. intaasina waxay tahay inaad Arjun la hadasho uu qasriga yimaado, uu guurkiina ku diido dadka hortooda, boqoradda iyo weliba reerka intiisa, si aynu u xidhno dhammaan albaabada guurkaaga oo dhan. oo bes saasaynu ku dhammaystirnaa. kadibna hooyada aniga ayaa ku weydiisanaya, oo inagoo midaysanna aynu farxad ku wada noolaanayna weligeen.
yaa amiiradeedii su-aal ma ku weydiin karaa adigu ma aaminsantahay jacaylkayga yaa waa maxay su-aashaasi jacaylkayga ma aaminsan tahay yaa maxaan u aaminsanaan waayey waan aaminsanahay haddii saatay dadkoo dhan maad la hadashi oo aad u sheegtay inaad jeceshahay oo aad rabtay inaad isguursano adigu nolosheedoo dhan ayaa tahay brimow tanina wax beena ma aha ee waa run labadeena inaan isjecelnahay waxaan fahmi la'ahayba kaalmada arjun waxaad ku rabto dhegayso baryaaye xilligani maaha waqtigii su-aalaha laakiin waa waqtigii ficilka anigu keliya waxaan kuudhi samee un samee waayo baryaaye brim qorshihiis weligii muu fashimin waan ku baryayaa haa laakiin dhaqso barya igu kalsoono aniga bal hal mar un igu kalsoonaayo inta arjun la hadasho eeg adigu wax kastaaba okay bay noqonayaa markaas dhaqso barya bes bal hadalkaygaasun ku kalsoono waa taleefon keliya oo dirta wax kale maaha oo intaa ka bacdina wax kasta khayr ayay ku dhammaanayaan dhaqso barya farxaddeena darteed dhaqso la hadal anigu waan tegayaa la hadal arjuun ilaawin hawsha adiga ayaan kuu daayay sidee ku dhici kartaa taasu marnaba macquul maa waxaasu maxay macquul noqon weyday waa wax sahlan sida macquul ku noqonaysa anaa kuu sheegaya bali dhegayso aniga iyo qorshaha aan wato mushkilad kasta oo dhacda ugu dambayn ninka guulaysanaya waa adiga ii sheeg hadda ma isku raacnay arrinkaa halo iska warrama brim baa kula hadlayaa soo dhawo brim singaan iyo inuu kula hadluu rabaa oo boqoradii waan ka xumay wax kastoo dhacay haye waan ogahay inantaadu waxay samaysay inaad ka xun tahay sinaanba uga xumahay inankaygu waxa uu sameeyey iyo wax ku kacay wixii dhacay waaba dhicin laakiin isku day adigu inaad arjun saamaxdo boqoradii anaga wejigayga u madoobaaday weliba inugu filan laakiin hal wardaad jirta oo qaladkaa ku sixi karna iyo weliba qaladka ay ubadkeenu sameeyeen waa caynkaa sarna lagu dallacayo xidhiidhka labadeena faamili arrinkaasna waxa weeyaan in inankayga arjun inantaada beriyow guursado bariin baa sheegada arrinkaadu guurkaada gashahay haa waan rabay arrinkaa inaan kaala hadlo laakiin saan u ogaado ra'yigiina brim baan ku idhi balla hadal iyaga mudana singania waad ku mahadsan tahay arrinkan anigoo weliba si xun kuula hadlay haddana aad ayaan kuuga mahad celinayaa waa waxaan kugu idhi waad mahadsan tahay 100%. waan ku baryayaa ee boqoradda haddii xaaladaada anigu aanan fahmaynba telefon aad leedahay maba soo garaacdeen arrinna labadeena iskumaynu raacneenba brim hadda muhiimadiisu waxa weeyaan inuu ilaaliyo sharafta reeraheenna kadib markii arjuun iyo baryaa ceeb weyn labadeena bay noo soo jiideen waad mahadsan tahay adeero mar haddaad saasoo dhan iyaa maanta laakiinse aniga hal tallaabo ayuunbaa idhigmay si aan qofna iga mamnuucan inay beryaan noqoto qof aan anigu keligay leeyahay iyo weliba hantida iyo qasriga oo dhan halo arjun yaa ila hadlaya aniga arjun codkayga ma garanaysid miya arjun maxaad ila hadli la'day hadal haddaad ii jawaab weydo arjunow haddaan dhigayaa telefoonka waan dhigayaa beriya adigu ma jeceshay inaad ila hadasho oo haddana maxaan kula soo hadlay saacad baan kula hadlayay markaasaad hadli weyday ii sheeg maxaad isu malaysay adigu oo haddana ma aamusnaantii waad bilowday yaa maya waan hadlaya waayo mar dambe ha aamusin ma fiicna inaan keligii isla sheekaysa sida wax waalane ka waran xaaladaada xaaladdu ma fiicna hooyadayna maanta waan isdagaalay dadka guriga joogo dhana way bahadileen waayo aniga kula baxsaday arjun laakiin waan ka fiicanay waxaasoo dhan runtii waxay tahay mashaakilkaa faraha badan ayaa tacbi geliya aniga oo xaalkoo dhan qalad buu u socdaa imika sidee xaaladdu qalad ugu socon kartaa adigoo joogo nool ii sheeg arjun anna arrin dhabaan kala hadlay adna wadila kaftamaysaa soo maaha waayo waan ka xumay waxaan kula soo hadlay san arrin muhiim oo degdega kaala hadlo boqoradii hooyaday ahayd waxay rabtaa inaan isguursano labadeena
yaa haa adigaba la yaab bay kula noqotay soo maaha laakiin anigu waan garanayaa waxa aad soo wada adigu waanan ogay adigu inaan agtaada ka ahay saaxiibad kugu qaaliya wax kale aanay jirin oo aanad marna ku fakerin inaad i guursato sidoo kalena qalbigaaga uu sumaan ka fakeraya cid kalena aanad u baahnayn aniguna sidoo kale qof aan bariim hayn aanan doonayn laakiin hooyaday waxaasoo dhan iyadu ma oga arjuno anigu bariim la-aantii ma noolaan karo aniga iyo bariim in badan ayaan fakarnay oo arrinkan aan qaadaa dhignay waxaanaan ogaanay qofka keliya ee mushkiladda naga saari kara inaad adiga tahay arjuno waxaan kaa dalbanayaa hal wax inaad samayso bariim hadda gurigiinii ayuu ku soo socdaa waxaan kaa rabaa inaad soo raacdo oad halkan timaado adiguna oo waxaa kaloon kaa rabaa reerka dhan hortooda inaad ka tidhaahdo guurka baryaama raba oo markaa ka bacdina aniyo bariim ayaa isguursanaya waan kugu kalsoonahay waayo waxaa tahay saaxiibkayga dhabtaa waan oga inaad i caawinayso oo aanad marnaba murugay la jeclayn aniga waan ku baryayaa guurkan diid aniga bariim baa ileh ogtahay arjuno wakhtiga aan yaraa waan riyoon jiray dhowr riyo ayaan ku riyooday waxaan ku riyoon jiray inaan hawo kala qaato inaan nolol ii gaara anigu aan ku noolaado taana adigaaba ii rumeeyey maalmihii koobnaa ee aynu wada qaadanay wax badan ayaa nolosha ka bartay oo aan ka fahmay haddana riyo cusub ayaan ku riyoonayaa riyadaasoo ah inaan jacaylkayga dhabta aan meel kula noolaado oo aan la farxo in badan qofka riyada ii rumayn karaana cid kale maaha ee waa saaxiibkay arjuun waa inaad riyada ii rumaysaa oo intaad bariim soo raacdo dadka hortoodoo dhan aad ka tidhaahdo guurka beriyaa anigu diyaar ma ihi aniguna ballan baan kuugu qaadaya mar dambe inaanan waxba kaa dalbanaynin bliis arjuun intaa igu caawi waan ku baryayaa arjuun waan ku baryayaa arjuun anigu dhaqankaa kuguma jecliba markaan qiimo ku yeelay ayaad iga aamusiisaa ka waran saacad baan kula hadlayay adiguna jawaab kaliya imaad siin maxaad ismooday arjuun horta arjuun wuxuun ku hadal waan ku baryayaa idhegaysa arjuunow markii ugu dambaysay ayaan ku weydiinayaa beri ma soo raacaysaa mise waa may yes waan hubaytaa arjuunow iyanad i caawinayso idhigayso marka ugu horreysa ee uu beriim guriga ka soo baxayo waa inaad gaadhigiisa soo raacdaa kadibna aad toos gurigayga u timaadaa may maqlaysaa oo si kastaba ha noqotee ta keliya halka ka faa'iidaysa aniga maaha adigaba faa'iida kuugu jirta jacaylkaaga sumaanna waad arkaysaa markaad halkan timaado oo yaa og inaad mar dambe arki doonto iyo in kale halo halo oo markaa telefoonkai hadda maxaa ku dhacay ma garanayo wax helayba waaya dhib ma laha arjuun qasriga wuu imanayaa intaasa iga badan waxaad moodaa wax kasta saan u rabo inay u dhacayaanba qasrigan aniga iyo beriim aan dhowaan ka bixi doono anigoo wada socono aniga waxa keliya ee layga rabaa waa inaan hooyaday aan la soo heshiiyo si hadhow beriim markuu hooyadii ii weydiisto markiiba u ogolaato oo aanay igu diidin ma garanayo saan ula heshiiyo beriim baa xalkaa haya maya miskiinka mashaakilka haysta iyaabaa ka badanba looma baahna inaan dhibo oo aan maskaxda xanuujiyo mar kale beriya wuxuun ka faker maxaan sameeyaa waan helay
laakiin wayna ii hagaagtaa. iska waran hooyo, soo dhawow beriya, ma soo geli karaa? dib ma jirto, haddaad mashquulsan tahay hadhow waan soo noqonayaa. istaag, kaalay halkan. ma ogaan kara waxa ii kaa keenay hadda? waxaan u malaynayaa waa arrin daruuri ah, haddii kale keligaa imaad timaadeen. haa hooyadee, waxaan kuugu imi saan kuugu sheego go-aankayga waxa uu yahay. go-aankayga oo maad ilowday qofka keliya qasrigan go-aan ka qaata inuu aniga tahay. go-aankayguna waa kaa baan kudhi, adigiyo arjuun waad isguursanaysaan baan kudhi saa ugu dhaqsaa badan. maya hooyadee, anigu arrinkaynan ka hadla kuuguma imanin. arjuun waa inan wanaagsan, mushkiladna uma arko inaan guursado. laakiin anigu hooyo waxaan kuugu yimid mashaakil fara badan ayaan adiga ku baday, madaxna waan ku xanuujiyey, ceeb fara badanna waan kuu soo jiiday. laakiin hadda hooyo waxaan ballankoogu qaadaya mar dambe inaana waxaa u noqonayn, adigana ceeb dambe aanan kuu soo jiidayn. laakiin halkan waxaan kuugu yimid inaan kuu sheego go-aankaaga inaan ogolahay. yarsug, waan ku faraxsanay inaad dareentay mushkiladda iyo madax xanuunka aad reerkan u soo hoysay aad sababta u ahayd. waanan ogay sidoo kale go-aankan qaatay inaad ku faraxsan tahay oo aanad marnaba ka soo horjeesanayn haba yaraatee. laakiin waxa keliyan kuu caddaynaya waxay tahay waxaan oo dhan aan samaynayaa inay adiga wanaaggaaga tahay. anigu hooyadaa baan ahay, wax natiijadiisu xuntayna haba yaraatee kulama rabo. arjuunna waa inan wanaagsan, berri ayaad ogaan doontaa inuu hadalkaygaasi sax ahaa, waanaad ogaan doontaa inaan wixii ku wanaagsan kuu dooray anigu. laakiin hooyadee, waan ogay hadalkaa, weliba waan hubaa. sidaa darteed baan kuugu yimid oo aan go-aankaaga u qaatay hooyo. beri ay dhegaysanantaydii wax kasta mar kalead ogaan doontaa. haa, haddana nabadgeliyo, orodoo iska seexo. hadalkaaga waa sax hooyadeedii boqoradda ahayd, wax kastaa sidaan rabo ayay u socdaan. gaar ahaana markuu arjun yimaado oo uu diiday inuu aniga guursado, markaasaan helayaa wax kastoon u baahnaa iyo bariimba. adigoon ii cadhoonin odhanna waad i canaadaysaa ayaan bariim helayaa, nolosha inta ka dhimanna aan la noolaanaya. arjuun, odhiya arjuun. maxaa dhacay? aawi arjuun. arjuuna waa hubaal qolkiisu ku jira, maxaa jira oo dhacay? ii sheeg, waa maxay waxaan ku dhibayaa? maxaa jira la warwar? boqoradii way ogolaatay inanteedii amiiradahay sida ugu dhaqsaha badan le arjuun loo gooriyo laysku haa, annaguna ogolaaday in labadooda laysku daro waacinkaa. arooskuna sida ugu dhaqsaha badan le inuu dhacay rabtaa. sidaa darteed inagu diyaargarooga waa inaan imkas kasii bilownaa. laakiin xaqiiqada waxay tahay sumaan buu jecel yahay arjuun. waxuu sheegay oo leeyahay beriya iyo arjuun baa laisku guurinaya. tolo beryaan dib wuxuu arjuun la mashquulsan ama waxana ee dhib. maxaad ka fikiraysaa hadda adigu? ii sheeg. waxba ma jiraan. arrintan unbaa kadis igu noqotee, wax kale ma jiraan. anigana waxay la tahay inaynu degdegayno, waayo miyaan ahayn arjuun inaynu wax weydiino marka hore. inankaaga arjuun markii ugu horreysaba khalad isagu aad weyn buu galay. miyaad ilowday inankaaga arjuun inuu isagu khalad xun u galay oo inanta uu 3 cisho gurigeedu kala maqnaa? arrinkana waa arrin amiiradda sharafteeda lagu asturayo. taa macnaheedu maaha ogolaanshaha tuuleen qaadno ee waa inagu amarkeenna u qaataa isagu. guurkaasna waa inuu dhammaystirmaa. haddana diyaargarowga bilow. ma u dulqaadan karo in yaro dibdhaca inuu guurkaas ku yimaado. waa inay wax kastaba dhammaadaan si arjun, waxaan rabaa inaan arrinkaa la hadlo, laakiin waxbaad muddo inaad guriga kasii baxaysa. halkee tegaysaana? haa hooyo. oo waa xaggee? beryaa baa aniga yeedha hadda.
بريا أو محل كوجير بريا حتى ده يشجع واحد عايق كوجير سبريا ورد جيسو أذوق سمان بتعيش سامها ورما قلتي إني بقرتي لسه هذا شيء عبها أو يقامين أراس كذي بريا أرجوان كبريا واحد ربينا نوجدني مشكلة كويستين كلا ما يهويو واحد مشكلة هذا ما ترتوي عادي واحد كستوى خير أرنتنا سد مودي معها واي محنو دريمي إنه أرنكو حنيهاي أو قلد وين تشرو وارم حاجرة إن هوي واحد وحويان أذوق واحد صورنا سا وحيابان تريمبا إن هوي وحويان إن صاحبك بريم بحقه سيجو سجيا مركوانا وتجاو أرجون إن كيجيو أنا ما قرني وحن كوجد كويس إيه مشكلة ده كشرته لكن أنا waxaan dareemayaa inay wax khatar jiraan oo adiga qaranayso iyo waliba inaad sameynayso waxaan adigu ku qanacsanayn haddaad doonto ay sheegin waxa kugu dhacay laakiin xasuusno inaan ku qasbanayn qofka jecesha inaad u weydo qofka la dartii laakiin muhiimadaadu waa inaad farxad hesho adigu oo samee wuxuu qalbigaaga ku raahdo arjano oo dhageysan cod kale ka qalbigaaga mooyaane waayo qalbigu hooyo waa ka kaliya ku tusa wadada saxda ah ee aad marayso ama ku hogaamiya iska waran boqoradii soo dhawow inankaygiyo maxaa la daagantay fadhiisadee hay mahadsan ma rumaysan kartid saan ugu faraxsanay mar kale inaan labadeenu kulannay ma aragtaa boqoradii arjun anigaa kuu keenay dee sidaan kuugu ballan qaaday anigaa sameeyey haddaad wax kale dirsanaysana dee diyaar baan ku ahay marka hore waxaan kaa raali gelinay inankaygiyo sidii xumeyd aan kula dhaqmay adiga waayo si xun oo aan wanaagsanayn ayaan kula dhaqmay markii ugu horreysaan is aragnay qalad faham baa dhacay oo si aan wanaagsanayn baan kula hadlay laakiin hadda wax kasta way isbedeleen oo aniga ayaa la hadlay aabbaha Singania وحتى أبها وحيدي ونلاوية وحي هوري داعي أبها مدن سنغانيا وحي يقول رأسيه إن أدقيه أمير برياد سقور ستان أرجو ما مغلي سوا حنكو هاد ليو